شيخنا فاضل سؤال شكوت waxay ka timid gabar walaalaha kamid ah awalan salaan kadib oo salaamaysa walaasha waxay leedahay sheekuna faadil waxaan ahay gabar hadda dhow guursatay oo guurka ku cusub guurkeeda waxay tiri marka aan guursanayo waxay guursaday hadda wiil baan isguursanay wiilkaasna waa wiil aad u afminshaar ah yani macnaha hadalkiisa iyo يعني sidoo hadlaayo waa nin aad u afminshaar ah leedahay marka waxaan ogaaday markuu guursanayay guurkeygii si dhaqso ah yani ayaan ku galay gadaal waxaan ka ogaaday marka aan guurka galay oo yani arimihii guurka iyo gurigeyga dhaqaale ahaan aniga ayaan xoogeedaba aan habeystay leedahay walaasha si su'aasha soo qortay marka waxay leedahay sheekuna faadil waxaan dib ka ogaaday wiilka wuxuu igu sheekeeyay inuusan waxba haysanin uu arday uu yahay waxaan dib ka ogaaday inuu xaas kale ku leeyahay state kale oo ilmo ay u hayso gabadhaasna uu aad u dayacay ninkaas ay rafaadsan tahay gadaal baan ka ogaaday bay leedahay hadda markaan arrintii ogaaday anigu waxaan sameeyay ayaan garan kara la'ahay bay leedahay guurkii inaan iskaga baxno waan rabaa waxay leedahay si raacisay diinta maxay ka qabtaa qofka markuu guursado yani hadduu been ku sheego oo guurkii been ku soo galo oo aad gadaal ka ogaatay maxaa ii banaan haddana waxaan ku fikiray maadaama uu ninkan yahay nin reer kale dayacay oo anigana nolosheeda inaan sidaa oo kale noqdo ayaan ka baqaya intaanan ilmo isku dhalin inaan ka taga ayaan jeclahay baleeda waan ku dhageysanahay baleeda sheekuna faadil maxaa igula talin lahayd diintana maxay ka qabtaa falyatafadal mashkuura wamajuura sheekuna بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سيدنا وحيلا هاي جوركي ودو هاي سيدا يكون تلمانتي من أفمن شارع أياء القضاء حتى أرجع في وإن شاء الله يسوع لقى جويو قابك استعمالك وحيلا أنا وحن دونينا إصلاح بان دونينا برنامجك وحالة إلى التالي وأنقل التالي نتكلم مقالا فبرنامجك إنه وح إصلاحية أو حاجات شيء ويأثل كيسو marka erayada xasaasiga keenaya kala fogaanshaha keenaya in la iska ilaaliyo waa wax aad iyo aad u wanaagsan weeye si kastaba ha ahaatee gabadhan waxay leedahay guurkayga si degdeg aan ku guursaday inaad si degdega ku guursato kama dhalanayso guurkaagu inuu wanaagsanaado iyo inuu xumaado kuwa intay sanado badan isla socdaan oo waqti badan ay guurkooda ku bixiyaan intayna isguursanin ayay markii dambena noloshu ka xumaataa kuwa intay si degdeg isu guursadaan rabbi u barakeeyaa ama isu barakeeyaa tabaaraka jalla wacala inaad marka hore guurkaaga marka inaad ku degdegto caraqo iyo saamayn lama laha dabcan sida asalka caadiga la yaqaano inkasta oo inaad wax ka fiirsato ay aad u wanaagsan tahay ama aad u wanaagsanayd waxaan kula talinayaa gabadha waan u soo noqonaya iyada ku halqabsanayaaye markay wiilasha guursanayaan jacaylka ay wiilasha iyo guurka u qabaan gabdhuhu inayna dhaafinin inay ku keento inayna wiilkan iska baarin qofka bini aadamka waxaa la doonayaa in la iska baaro gabadha waa in la baaro wiilkana waa in la iska baaro xaggee laga baarayaa si aynan gabadhan sida ku dhacday oo kale ayna ugu dhicin masalan marka hore waxaa la iska baaraya qofka yuu la socdaa yuu saaxiibe la yahay yuu qaraabe la yahay hadda meeshuu joogo muxuu ka qabtaa yaa yaqaana yaa si dhaba hoos u keeni kara taasaa la doonayaa qofku marka hore inuu waqti ku bixiyo ayadoo intaa lagu bixiyo la dadaalay haddana waxbaa qarsooni kara laakiin waa dadaal aad iyo aad u badan weeye marka gabadhan waxaan leeyahay marka koowaad waxaa arrintu ahayd in meelo badan aad ka baadho waana midda aad ku cabirtay
xoogaa degdeg baa isoo galay calaa kulli xaal gabadha meeshay ka cabanaysaa waxaa weeye ninkii noocaas ahaa ayaa waxaan dib ka ogaaday inuu xaas leeyahay weliba ilmo leeyahay maxaad igula talinaysaa waxaan dhihi lahaa oon ku dhihi lahaa sabar muuji oo dul qaado oo waxaa laga yaabaa ninkani haddaan u cudur daaro oon dhinaca fiican ka eego haddaan hadduu kuu sheegi lahaa inuu xaas kala qabo inuusan ku heleen baa suurtagala inuu saa u fikiray ayadoo wax wanaagsan aynan ahayn oo guurku waxaan rabaa in xaqiiqa layskugu sheego ninka xaas qaba inuu qariyo oo uu yidhaahdo waxba ma qabo natiijadan oo kalaa marka ka dhalanaysa si kastaba ha noqotee gabadhay sabar baan ku dhihi lahaa dul qaada ayaan ku dhihi lahaa wixii dhacayba hadda way dhaceene ninkaaga si dhaba oola fadhiiso hadduu xaqaagii ku siin waayo oo waajibaadkaagii ka soo bixi waayo waa mas'alo kale laakiin mas'aladan aad gadaal ka ogaatay ee uu kugu khayaanay waxaan ku dhihi lahaa maadaamood reer isu noqoteen oo xaaskiisii aad tahay ilaahay baa tabaaraka wa tacaala garanaya wixii maslaxada waxaan ku dhihi lahaa candhuuftaada dib u laq ilaahayna bari tabaaraka wa tacaala culayska inuu kaa qaado asagana la fadhiiso oo xuquuqdii aad ku lahayd ka dalab hadduu markaa xuquuqda ku sii waayo waa baab kale iyo mas'alo kale oo qaraabo iyo qoys iyo culummada meeshaada joogta ayaad u bandhigan doontaa biidnillahi tabaaraka wa tacaala taladaan ku siinayo waa sabar iyo dulqaad iyo ninka intaad la fadhiisato inaad xaqaagii ka dalbato saasaan kuula talin lahaa wabillahi tawfiiq